بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa salaamaya meel kastoo aad joogtaan. maanta shirkaygan jaraa-id waxa uu daaran yahay baaq uu diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud 8 Oktoobar kaas oo lagu dhisayo hay-adda culimada Soomaaliyeed. marka waxaan rabaa inaan arrimo dhowra aan ka iraahdo. sida la ogsoon yahay dowladuna ay ogsoon tahay, madaxweynaha laftigiisu ogsoon yahay iyo ra-iisul wasaaruhu, culamaa ahlu sunnati wal jamaaca markii ay dowladdan timaaday si diiran ayay usoo dhaweysay. haddana maca daalika waxaa arrimaha diinta iyo awqaafta laga dhigay shaqsi dhaawacan oo ummadda Soomaaliyeed dhibaato badan u geystay, oo ururka al-shabaab mu'asasiinteeda ka mid ahaa, oo xasuuq badan oo ummadda Soomaaliyeed loo geystay. hadalladiisa la hayo asagoo dhahayo waa ku faraxsannahay oo raallina ka ahaa xasuuqa ummadda Soomaaliyeed. waxa uu ummaddaas uu ku leynahayana ay ahayd magac diineed iyo culumonimo asagoo sheeganahaya. ninkii asaga ahaa ayaa haddana waxaa looga dhigay ummadda Soomaaliyeed wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta. waa arrin dhibaato weyn ummadda Soomaaliyeedna ku ah, dhaawacna quluubta qof walba meesha uu joogo dhaawac gooniya ayay arrinkaasu ku qabatay. ayadoo arrintaasu ay xanuun badan tahay in shaqsi noocaasa loo dhiibo arrimaha diinta iyo awqaafta, ayaa haddana maca daalika culamaa udiinka ahlu sunnati wal jamaaca waxa ay fiiriyeen meelo badan ayay wax ka fiirsheen. waxa ay garowsadeen ama go-aansadeen in dowladda curdunka oo markaa la dhisay sifo kasto wax iyadu ha ku soo magacaabato inaanan carqalad lagu keenin, oo la soo dhoweeyo haddii alla kuuran yahay magacaabistii ninkaas, oo aanan macnaha buuq iyo dagaal midna aan la samaynin. taasu waxaad dareemaysaa inay ahayd culummada ahlu sunna wal jamaaca xilkasnimo iyo daljacayl iyo dad jacayl inay ka ahayd arrinkaas ayaad dareemi kartaa, ayagoo ogsoon ninka noocaas oo dhibaatada badan geystay. ha ahaatee waxaa markaasu meesha ka soo baxay in madaxweynuhu uu dalbado in haddana la dhiso hay-adda culummada Soomaaliyeed. sidaan ogsoonnahay dalkan ummadda Soomaaliyeed waxaa hoggaan u ahaa ama diinta islaamka soo gaarsiiyey culummo, ayada oo Madiinatul Munawwara aysan gaarin diintu, ayay Soomaaliya iyo Etoobiya intaba ay diinta islaamka soo gaartay. culummadii ilaa iyo xilligaas ilaa iyo hadda joogtay waa culummadii ka badbaadisay isku dayadii guracnaa ee gumaystaha uu watay, oo ahayd dalkana in lagu qabsado, diintana lagu bedelo. dad culummadii marka ka dhiidhisay oo dalkana difaacday, diintana difaacday, ummadda maanta nabadda iyo xorriyadda ay haysato, dadkii usoo huray dhiigooda iyo naftoodana ay ahaayeen culamaa ahlu sunnati wal jamaaca, oo caqiida ahaana culamaa ashaacira ahaa
madhab ahaana shaaficiye ahaa, duruqna hadda suufiya duruqdeedoo kala duwan ahaa, masharaf kasta ay yihiinba culummadii noocaas ahayd ayaa waddanka xaq u lahayd inay waddanka diinta ku hogaamiso ummadda soomaaliyeed. waxaad dareemi kartaa hadda maamulada dowladda waxaa loo isticmaalaa oo loo qeybsaday wax la yidhaahda 4.5 oo macnaheedu tahay inkastoo iska xaqdarro ay iskaga jirto, haddana maca daalika inta u waaweyn ayaa inta ugu badan qaatay qabaa'ilada. meeshaana markii la yidhaahdo diinta islaamka ama yacni dadka muslimiinta ah, waddanka waxaa iska leh 0.1 ayay ka yihiin nimanka hadda maamulka diinta loo dhiibay, waana nimankii keenay in qof muslima la dilo. weli taariikhda kuma haysaan culamaa ahlu sunnati waljamaaca oo masjid qarxisay, taariikhda kuma haysaan culamaa ahlu sunnati waljamaaca oo ummad shacaba gowracayso, taariikhda kuma haysaan ummadda ahlu sunnati waljamaaca oo ummadda soomaaliyeed inta gaalnimo u layso baabi'inayso. marka diinta noo timid hadda oo ah in ummadda la barakiciyo oo dalka laga barakiciyo oo diintii laga gediyo la dhalan rogo oo diintii oo dhan laga dhigay diin naxariis aanan ahayn, ilaan diintu naxariis bay ahayde naxariistii laga qaaday oo qofka culummada maanta markii la arka laga naxayo. sababtaas cidda keentay waxa weeye oo qof walba gaalnimada ku xugminayso waa caqiido wey. caqiidadaas marka ma ahan dhalinyarada yararkaa ee al-shabaab ee hadda duurka ku jira oo xabadda lala dhacahayo, kuwaas dembi gooniyaho ay geysteen ma leh, kuwii abuuray ayaa magaalada jooga oo dhaqaalaha siiya oo abaabulahaya. kuwaan waa dhalinyaro askarahoo laga dhigtay oo wax ay og yihiin maanta aysan jirin. kii asaga abuurayna waa la korinahayaa, waa la barbaarinahayaa, waa la noolaynahayaa, waa loo istaagahayaa, waa la sharfahayaa, waa la qadarinahayaa, waa la xurmaynahayaa. dowladdiibuu ka mid yahay, maamulkiibuu ka mid yahay, hantidii waddanka iyo ganacsigii gacanta ayaga ku haya. marka waxay la mid tahay waa socon weyne aan orodno. marka waxaa la rabaa qofku inuu fakaro, doqoni qufacday meeshii laga gaarayna garan weysay. waxaa la rabaa xaggee dhibka nooga yimaadeen in qofku uu isweydiiyo, maxay tahay nimanka al-shabaabka oo maalin walba dadka qarxinahaya, maxay aaminsan yihiin, maxaa caqiide ahaan u ah, yaa waxaan yacni haddii alla kuuran yahay soo baray, yaa ku taagan waddadeedii. halkaas in wax laga fiiriyo, meeshaasa caafimaadku ka imaanahaya iyo daaweyntu. marka dadkan soo tababaray oo maalin walba masaajidda u fadhiya oo bakaaraha jooga oo nairobi jooga oo yurub jooga oo muqdisho jooga oo gobollada dhan jooga oo khudbadihii akhrinahaya oo maalin walba dadkii yacni dhiiro gelinahaya oo dowladdii ka mid ah, waxaasoo dhan waa la korinahayaa. haddana maca daalika diintii iyo awqaaftii baaba loo sii dhiibahayaa. marka waxaan leenahay ummadda aan la dirirno waxa weeye waa arrinkaas huuhaa iyo been abuur weeye. dhalinyarada masaakiintaha oo yararkaana layntooda macno keeni mayso. dadkii ishii meesha kasoo burqanaysa haddaanan la qaban, biyahaas daadanahayo oo daadkaa aan gurna suuragal maahan. in isha la xiro waayo. isha haddaan la xirin biyahan daadka ah weligood ma joogsanayaan, waana dadka wax lagu lugoynaya. waa fuusto dabada ka duleesho oo dadkii haddii aan la kuuraya waalnaa la dhihi jira biyo ku shub way. marka fuusto dabada ka duleesho oo biyo lagu shubahayo weligeedna ma dhammaanayso, biyana ma buuxsamahayaan, halkaas unbay yacni ku socdaan. al-shabaab haddii hadda maanta la yihahdo dagaal ha lagu qaado ha la waxeeyo, waa caqiido. wax dagaalka lagu qaadahaya caqiidaa la rabaa in dagaal lagu qaadee, shaksiyaalna ma ahan. caqiidadaas marka baadilka ah oo waddanka lagu dhigahayo oo iskuulaadka lagu dhigahayo
oo usul thalathaha ah oo saddexda tawxiid ah oo ba-i hooga ah kuwaas in laga qabto weeye dowladdu waa inay intaa garataa dowladdu waa inay garataa culamaa ahlu sunnati wal jamaaca doorka ay leedahay inay garato weeye taasu waxa weeye dowladda ayaan u sheegahayaa maxaa yeelay hadda ka hor waxaa jiri jiray midka la yidhaahdo soomaaliya waxaa ka jiri jiray mid la yidhahdo tuug cagaweyne tuug la yidhaah oo aada xariif u ahaa oo kaartooyinkiisu ay aada u tiro badnaayeen mararka qaarkood wuxuu samaynayaa dacaskii ayuu gadaal u xiranayaa raadkiisii baa la leeyahay hala raadsho asagana dadka waa dabamare raadkii baa la goobayaa meeshu raadka u socdo maahana meesha kaleu ka baxayba ka gee waxaa kaloo jirtay tuugga markii la ceersanayo dadka inuu dhex galo tuugga qabta asagaa wax sii dhahaya laftigiisii baaba dhahayo tuugga qabta dadkii marka xaafaddii u sii marana horey usii ordaysaa horey bay usii ordayaan tuuggina waaba kanaa waba la ordaayaaba uu dhex socdaaba goormaa la qabanayo marka tuuggaas marka soomaaliya tuugga qabta sheekadii ahayd baa ka jirta al-shabaab qabta ma jirtee al-shabaabkii baan korinaynaa taa horta hor hal la ogsoonaado marka intaas meeshaas uga soo baxo oo qadiyadda xaqiiqada ah iyo al-shabaab la dirarku inay xaqiiqo hoose noqoto caqiide ah inay noqoto muhiimkaas iftiimiyey markaan ka soo baxo waxaan rabaa inaan usoo laabto madaxweynaha 8 bisha October wuxuu ku dhawaaqay in la sameeyo hay-adda culimada Soomaaliyeed hala sameeye waxa weeye majority leads the minority baa la dhahaa majority-ga dadka bulshadu meesha ugu badan ayaa xaq u leh inay hogaamiso dadka minority-ga marka hadda waxaa marka aan ka aragnaa guddi farsamo oo la qabtay baa jira oo haddii aan la kuuran yahay hadda la sameeyey guddigaa farsamo waxa weeye meesha waxa ka buuxa waa dadkii al-shabaabka ahaa iyo macallimiintoodii iyo mashaa'ikhdoodii weeye waxa meesha ka buuxa iyo 2 iyo 3 aan matalin ahlu sunnati wal jamaaca oo aan matalin oo naftooda matala iyo danahooda khaaska ah ayaa meesha lagu daray oo asal madoorsho ah oo loogu talagalay in dadka lagu indhasarcaadiyo la dhaho hebel iyo hebel oo aad taqaanaan baa ku jira kuwaasna ma matalaan ahlu sunnati wal jamaaca ma matalaan waa shakhsiyaal danahooda khaaska ah u ordahaya marka waxaan leeyahay marka madaxweynaha waxaan leeyahay iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka intaba horta number 1 cadaalad yaan laga tegin number 2 xaqa oo muuqda yaan la iska indhatirin number 3 dadka aad leedihiin annaga madax u ah oo yacni xaqoodii xuquuqdoodii dhicinayna inaa ayagii xaqoodii xuquuqdoodii duudsiisaan ha isku dayina ficilka noocaasana dhibaato badan buu keenayaa caabuq buu keenayaa wuxuu keenayaa marka xasilooni la-aan buu keenayaa arrinta ayada ahna waxaan leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka intaba ha ka digtoonaadaan in ay isku dayaan inay baas mariyaan yacni guddigaas u badan kooxda al-shabaab aabbayaalkooda iyo mashaa'ikhdoodii meeshaan waxaa la rabay inay xaqa u lahaadaan cidda liid garaynayso culamaa ahlu sunnati wal jamaaca maadaama yihiin culummadii dalka maadaama yihiin badbaadiyaalkii dalka maadaama yihiin aabbayaalkii dalka maadaama yihiin dadka ka naxaya dadka iyo dalka iyo diinta intaba inay yihiin dadka noocaasana la rabaa badbaadadu ay ku jirtaa laakiin kuma jirto badbaadada ninkii shala ku gowracahaya inaad mindida u dhiibatid oo aad tiraahdid aadna u afaysid oo aad tirahdid igu gowrac suuragal maaha waana caqli xumo waa caqli xumo waay marka dowladda ha ka fiirsataan leeyahay warqaddii shala soo baxday oo haddii aan la kuuraya culamaa ahlu sunnati wal jamaaca iyo golayaasha dhammaan iyo dadka ahlu duruqa ah ka soo baxdayna waa warqad jirta oo saxaafadda loo soo bandhigay warqaddaasna waa warqad matalayso xaqiiqada ka hadlayso taabanayso
war murtiyeedkaas. marka intaasaan rabaa inaan macnaha kusoo koobo. waxaan leeyahay ahlu sunna wal jamaaca ayagana ahlu sunnoy inaad midowdaan oo gacmaha isqabsataan oo haddii alla ku ron yahay wax kasta oo xumaana oo dalkan dhib loogu keenayo ama dadka Soomaaliyeed dhib loogu keenayo ama diinta dhib loogu keenayo inaan ka dhiidhino waajib muqaddas oo nasaaran waay inaan arrinkaa u istaagno iskana kaashanno baa loo baahan yahay. marka qof kasta oo ahlu sunna ah qofka kale oo ahlu sunna ah waa inuu garab istaagaa, waa in diinta loo istaagaa. ku dhaqanka shareecada islaamku waa shay muhiim ah laakiin si qaloocan inaan loogu dhaqmin. waa in dadka aan la marin habaabin. waa in saddexdan tawxiid oo ummadda lagu gaalaysiinayo laga joojiyaa dalka. waa in caqiidadan xun oo macnaha haddii alla kuran yahay wahaabiyada laga joojiyaa. caqiidadan khawaarijta waa in laga joojiyaa. haddaan intaan la samaynin Soomaaliya weligeed dhibkan kama baxayso. waxaana raadinaynaa daawo maalin walbana yacni waxa weeye meel aan daawadi jirin baan ka raadinaynaa. marka aad iyo aad baan idin salaamayaa. intaasaan kusoo koobayaa shirkaygii jaraa'id. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.